kulan wacan daawada meel walba oo aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada hadaanoo kalena waxaa idiin soo gudbinaa warbixinadii ugu dambeeyay ee filmada la xiriira ee Bollywoodka iyo waxyaabaha kale ee ka dhaca sida xanta filmada la rajeynayo iyo sidoo kale waxyaabaha noloshooda gaarka ah ee aktarada ay ka hadlaan xilli maalinle ah. Kriti Sanon ayaan ku bilaabanaa warbixinadeena maanta waxay sheegtay in loo dabaaldego dhalashada ay tahay waxyaabo laga badbadiyay. Xidigta ayaa July-da aan ka soo gudubnay waxa uu darsoontay hal sano iyadoo u dabaaldegtay dhalashadeeda. Xidigta ayaa waxa ay la dabaaldegtay asxaabta la jileysa filimka soo socda ee Shahzada kaas oo dhawaan la soo daayin doono ama la daawan doono. Xidigta wareysi gaar ah bixisa ayaa waxay ka hadashay in dhalashada in la dhigto ay tahay waxyaabo overrated ah ama waxyaabo laga badbadiyay. Kriti ayaa sheegtay in nafsadeeda jecesha laakiin ay u arkayso in dhalashada la dhigto ay tahay waxyaabo laga badbadiyay. Waxay sheegtay inay dareemayso inay jirto xoogaa yar cadaadis oo aad nafsadaada saarayso ku aadan maalintaas gaarka ah iyadoo sidoo kale raacisay inay jirto waxyaabo badan oo la filan karo. wax walba wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo maalinta dhalashada. Waxaan u maleynayaa in taas ay tahay waxyaabo laga badbadiyay. waxay sidoo kale raacisay hadalkeeda in ay jirto in telefoon ay ka helayso ama ay soo wacayaan asxaabteeda iyagoo dhahayaan maxaa qorshe ah ma jiraan waxyaabo qorshe ah aad leedahay. kadib ay sheegtay in markii dambe iska raadicinayso in ay ku qasban tahay in ay sameysto waxyaabo qorshe ah. arrimahaasi ayay xidigtu sheegtay in ay keenayso dhibaatooyin ah taasina ay ku tilmaamtay inay tahay in nafsada la dhibayo in la sameysto. dhinaca kalena haddaanu eegno arrimaha Bollywoodka maxaa laga filan karaa ayaa mowduuc loogu dhigay filimada Rakshan Bandhan iyo sidoo kale film kale Lal Singh Chaddha. Lal Singh Chaddha ayaa waxaa loo arkaa inuu fursad fiican u haysto inuu maalintiisa oo ganacsi fiican oo sameyn karo iyadoo filimkan uu u baaqday xilligii coronavirus oo jiray. filimka ayaa waxaa laga filan karaa sida 18/3 kaas oo Ranveer kala wada inuu saameyntiisa u lahaan doono iyadoona ay ku aadantaa maalin Christmas ah in filimkan la soo daayo iyadoona rajo fiican laga qabi karo. sanadkan ayaa la soo daayay filmo waaweyn sidoo kale lagu aadiyay maalmaha ay u yaqaanaan Republicanka iyo sidoo kale ciidaha la soo daayo kuwaas oo budget weyn leh filmadaasi. laakiin Lal Singh Chaddha ayaa wuxuu noqonaa filmka ugu horeeya sanadkan oo maalin holiday ah lagu aadiyay. inuu sanadkii ugu dambeeyay isku soo aadeen labada film ee isku dhaceen Suryavanshi sidoo kale 18/3 kuwaasoo labadaba ganacsi fiican ka sameeyay box office-ka. Lal Singh Chaddha ayaa laga yaabaa in uu maalintiisa kuwaad ku furto 8 crore sidoo kalena ay dhici kartaba in uu noqdo filmka ugu horeeya Hindi ee sanadkan box office-ka la saaray kaas oo maalintiisii kuwaad keenay 10 crore. dhinaca kalena markaanu fiirinana filmka Rakshan Bandhan ayaa asina waxaa leeyahay inuu rajo fiican lahayn marka loo fiiriyo asagoo maalintiisa kuwaad keeni kara ayaa la sheegay lacagna 3 crore. filmka ayaa wuxuu ku saabsan yahay maalinta walaalaha Rakshan Bandhan kaas oo usbuuca soo socda loo dabaaldegi doono. inkastoo filmkan la sheegay in Lal Singh Chaddha uu kaga fiican yahay xagga fursashada laakiin la sheegay inuu ka fiicnaan karo filmadii Akshay Kumar sida Bakshi Bandai iyo sidoo kale Samrat Berifraj kaas oo dhawaan la daawaday. waa arki doonaa haddaba waxyaabaha kale ee kusoo kordha filmadan oo sida hadda hordhaca loo saadaaliyay in ganacsiyadooda uu fiicnaan karo Lal Singh Chaddha halka film kale Rakshan Bandhan oo noqon karo film hoos u dhaca. dhinaca kalena markaan eegnana wararka la xiriira arrimaha Bollywoodkana barnaamijka Cafe with Karan ayaa xalaqada soo socda waxaa ka soo muuqan doonaan Arjun Kapoor iyo Sonam Kapoor kuwaas oo ilmo adeer ah. xidigta dhawaan qorabta hooyo ayaa lagu wadaa inay ka soo muuqato barnaamijka Cafe with Karan iyadoona kala soo muuqanaysa wiilka ilmo adeerka ee yihiin Arjun Kapoor. waana markii ugu horeysay labadooda barnaamij ay iskala soo muuqdaan. waxaana sidoo kale Sonam Kapoor ugu dambeysay inay ka soo muuqatay 2014 taasoo Sonam ay kasoo muuqatay ama ay kala soo muuqatay walaasheeda Riya Kapoor. sababta loogu dalinayo in labadooda ay kasoo muuqdaan barnaamijka ayaa in todobaadka dambe loo dabaaldegi doono maalinta walaalaha Hindiya ku beegan ee Rakshan Bandhan taasoo la rabo in barnaamijka arrimahaasi lagu hadlo lagu faaqido. arrimaha kale ka cusub Bollywoodkan waxaa ka mid ah in xidiga Naga Chaitanya lagu bedelay xidiga Vijay Sethupathi filmka Lal Singh Chaddha maadaama uu kala horo filmkaasi uu lagu soo diray Vijay Sethupathi. hal isbuuc ka harsan filmkan in la soo daayo si rasmi ah ayaa aad loo wada sugayaa iyadoo Amir Khan
la wada sugay in xarakadiisa iyo sidoo kale filimkiisa lagu daawo maadaama hal aboo la imaado filmo fariin la xiriirta waaqici ah oo ku saabsan bulshada qeybeeda kala duwan waxaana filimka la wada Kareena Kapoor iyo sidoo kale Naga Chaitanya iyo xidigta kale ee Mona Singh asaate wararkan helaynayo waxay sheegayaan in xidiga Vijay Sarbati uu filimkaasi lahaa doorka Naga Chaitanya kaasoo kasoo muuqan lahaa Aamir Khan saaxiibkiisa rasmiga ee filimkaasi kula jirayo asaate xidigu fursad u waayo ugu dambeyn oo sidaasi uu ku galay xidiga Naga Chaitanya waraysi gaar ah oo siiyay Naga Chaitanya Koimoy ayaa waxa uu sheegay in xidigu uu fursadaas uu ku helay sidaasi sidoo kalena inuu farxad weyn u waayo inuu la shaqeeyo Aamir Khan halkaasina uu faaruujiyay xidiga Vijay Sarbati ayaa fursad u waayay oo filimkaasi ku duubo wuxuuna u boqolay dhinacaas iyo Teluguga si uu filmaantiisa ama jadwalkiisa halkaasi oo u beeqaamiyo ugu dambeynna waxaa la arkayay xidiga Akshay Kumar oo kasoo qayb galay barnaamijka showga ee ka baxa TV-ga Sony Live kaas oo la dhaho Superstar Singer Season 2 xidig ayaa barnaamijka ku qeyrooday sidoo kalena ku ilmeeyay kadib markii si kadiisa codka walaashiisa la soo daayay ee ka yar iyadoo ku aadan tahay isbuuca maalinta walaaltinimada adduunka ee Rakshan Bandhan kaas oo Hindi laga dabaaldego xidiga ayaa walaashiisa codkeeda la soo daayay oo lagu dhigay kadis iyadoona ka hadashay dhibaatooyinka uu soo maray xidiga sidoo kale xidig inuu jeclaa markuu yara inuu noqdo boxan ku dheelay feerka martial artist-ka iyo halgan dheer inuu soo galay inuu ka soo muuqdo Indian Bollywood filmska Akshay Kumar ayaa markii codka walaashiisa dhamaatay halkaasi ku ilmeeyay asagoo uu sheegay in ay aad ugu helo walaashiisa aadna u jecel yahay sidoo kalena ka hadlay waxyaabo uu ka bartay aabihiisa kaasoo ahaa in xilligii ay dhalinaysay walaashiisa la wada sugayo sidoo kalena markii walaashiisa dhalato aabihiisa uu ku dhahay Akshay Kumar maxaa aan soo haray markan maadaama aad hesheen gabar aan xilligan ka bacdi ma baahno xidiga aabihiisa ayaa wuxuu ku yiri inaad heshay Rakshan kaasoo ah inaad u xireyso ama jaanis u heleesho walaashaada maalin walba ama sanad walba markii loo dabaaldegayo maalinta walaalaha ee Hindiga laga dabaaldego oo aad ku aragteen filmo badan in lagu soo bandhigay inta aynu kusoo xirinaa arrimaha Bollywoodka maanta aanu ku eegayna filmadii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha kale laga qoray xidigada Bollywoodka haddaad markaad ku horeyso subscribe inoo saar channelka asxaabtaadana la wadaag